kulan waxaan wanaagsan saaxiibayaal idil ahaantiinba meelba joogtaan kusoo dhowaada wararkii u dambeeyey ee Soomaaliya. qodobada aad wararkeena ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaqyo xoogan ayaa ka socda duleedka magaalada Laascaanood kadib dagaal kharaar oo maanta halkaasi ka dhacay. Musabbix ayaana wada dadaalkii ugu dambeeyey ee uu ku qabsanayo magaalada Laascaanood, waxa uuna ku soo daabulaya ciidamada kala duwan ee Somaliland iyadoo la arkayo in furimaha dagaalka uu ku soo daabulayo ciidamada booliska iyo taraafikada, taasi oo ka dhigan in jab weyn uu ka soo gaaray dagaaladii dhowr iyo 20kii bari ee u dambeysay ka holciyay magaalada Laascaanood. dhanka kale waxaa dhammaan xilalkii laga xayuubiyey isla markaana xabsiga loo taxaabay dhammaan saraakiishii hogaaminaysay ciidamada maamulka Somaliland kadib markii ay ku fashilmeen wajiga koobaad ee dagaalka. saraakiisha sida tooska ah loo bartilmaameedsadayna waxaa ka mid ah taliya Mahad Cambaasho oo la rumaysan yahay in uusan daacad ka ahayn dagaalka ay Somaliland ku doonayso in ay mar kale xoog ku qabsato gobolada ACC. abaanduulihii ciidamada maamulka Somaliland Nuux Taani ayaa isna la laayahay jaan iyo cirib halka uu dhigay, waxaana soo baxaysa in dhaawac halis uu ka soo gaaray dagaalkii bariga Laascaanood ka dhacay Jamcihii, isla markaana uu isbitaal u yaala wadanka Jabuuti dhaawaca ka soo gaaray dagaalkaasi, waana sababta uu Musabbixi u soo magacaabay bedelka Nuux Taani. dhinaca kale ciidamada maamulka ACC ayaa soo bandhigay dhammaan maxaabiistii ay ku qabteen dagaalka, waxa ayna sheegeen in ay sameynayaan arrin gobonnimaha isla markaana ay maxaabiistan ku wareejinayaan eheladooda, waana arrin muujinaysa in dadka deegaanka aysan rabin argoosi ee kaliya ay doonayaan masiirka dhulkooda in iyagu ka tashadaan. dhammaan qodobadaasi iyo kuwa kaloo faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan, waxaana barnaamijka qaybiga la stuudiyaha igula sugan saaxiibkii wacan oo soo indheeyay xaaladihii u dambeeyey ee dagaalada ka socda magaalada Laascaanood. waxaana ugu horeyn ku soo dhawow dagaal culus oo maanta u dhaxeeyay ciidamada Somaliland iyo sidoo kale xuwa deegaanka ayaa mar dhow soo gabagaboobay, waxaana wali socda dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ay Somaliland ku doonayso in ay mar kale caawa jiifka ku marto magaalada Laascaanood isla markaana ay xoog ku qabsato. bal maxaa u dambeeyay? ilayso aad iyo aad baad u mahadsan tahay. lama dhihi karo dagaalku waa uu soo gabagaboobay marka la eego xaaladda iyo jawiga ka socdo duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. ee dhanka galbeed ayuu maanta dagaal aad u xoogan ka dhacay, dhanka bari laftirkeeda dagaal ayaa isagana maanta ka dhacay. waxaana moodaa in Somaliland weli aysan ka quusan jabka iyo weliba halaaga ciidamadooda lagu geystay 23 bari oo dagaal uu ka socday duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. si kastaba ilayso dagaalku haatan uu yara qaboobay, laakiin lama dhihi karo wuu istaagay. waxaad moodaa in dhanka Somaliland weli aysan ka istaagin oo ay wadaan madaafiic aad u tiro badan iyo weliba sidoo kaleeto hubka noocyadiisa kala duwan oo marmar ay soo rideen. dadka deegaanka iska caabintii awalba ay ku jireen ayay wadaan, ayagoo weliba sheegay hadiise Somaliland arrintan aysan ka fiirsan sidoo kalena dagaalka aysan joojinin inay iyaguna si dhaba dagaalka u gali doonaan. dadka deegaanka waxay sheegeen inay ayagu gobonnimo dirirayeen oo dagaalku uusan dhabka ahayn oo rabeen Musabbixi inay wax tusaan, laakiin waa uu ku waansami waayey. waxaadna moodaa in dagaalka si dhaba haatan loo bilaabay. Musabbixi shalayta waxaanu sheegnay in ciidamadii badda uu dagaalka ku soo daabulayo oo ay ka qayb qaadanayaan dagaalka. haatan waxaa la bilaabay in la keeno ciidamada booliska iyo weliba sidoo kale ciidamada traafikada oo ayagu ka qayb qaadan doono dagaalka ka socda halkaasi. taasina waxay daliil cad u tahay ilaysow in ciidamada maamulka Somaliland lagu jabiyey, sidoo kalena aysan jirin wax kayda oo military oo u haray maamulka Somaliland. dhammaanba kaydadkii iyo ciidamadii ku sugnaa daafaha maamulka Somaliland waxaa la keenay duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. daily ama maalin kasta waxaa laga qaadaa duleedka magaalada Laascaanood in ka badan 200-300 oo wiil oo Soomaaliyeed oo ku dhaawacmay ama ku dhintay dagaalka ciidamada maamulka Somaliland ama dhalinyarada maamulka Somaliland ay dabka ku shidayaan. waxaadna moodaa in isbitaaladii maamulka Somaliland intooda badan ay buuxiyeen dhaawacyada weliba meydadka markaasi ka dhashay dagaalka xoogan ee ka socda 23 maalmood duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. ilaa iyo xilligan korneelka retireka ee markaasi dictatorka waxaad moodaa inuu weli gebi ahaanba ka quusan jabka ciidamadiisa loo gaarsiiyey weliba jabka ilaa iyo xilligan ku socdo. waxaana haatan uu soo bilaabay in ka badan 500 ilaa iyo 800 oo ka mid ah ciidamada traafikada iyo booliska ka howlgalaya magaalada Berbera iyo weliba sidoo kale magaalada Hargeysa in maanta ay dagaalka qayb ka noqon doonaan. waxaana la arkay in ka badan 20 gawaari oo nooca dagaalka iyo weliba
andhaha gawaarida ay saaran yihiin hubka noocyadiisa kala duwan culus iyo weliba sidoo kale in ka badan 50 qabaal oo markaasi loo maleynayay in ciidamada ee dalka Djibouti ay markaasi wataan in ayagana ay qayb ka noqon doonaan dagaalka oo ka soo bixin magaalada Hargeysa ilaysow si kastaba xaaladda waxaad moodaa inay sii cakirmayso dagaalku waa uu sii xoogaysanaya maalin ka dambayso agag aan goobihii hore ahayn ayaa lagu dagaalamaya dadka deegaanku way riixayaan ciidamada maamulka Somaliland jabkuna ma yaro marka la fiiriyo labada dhinac laakiin wali waxaad moodaa in dhanka maamulka Somaliland ay dhibaatada ugu badan iyo dhaawacyada ugu badan iyo meedadka ugu badan ay ayaga jirto waa tahay dhammaan saraakiishii hogaaminaysay ciidamada maamulka Somaliland Musabixi waa u wada bedelay sidoo kale abaanduulihii guud ee ciidamada maamulka Somaliland Nuuxtaani ayuu horay asna bedelay maxay tahay sababta uu Musabixi dhammaan u bedelay saraakiishii hogaaminaysay dagaalka Laascaanood aad iyo aad ba mahadsan tahay ilaysow dhammaan bataliyaashii ciidamada maamulka Somaliland police ilaa iyo military waa la wada bedelay sababta loo bedelina waxay tahay ciidamada afartii bari ugu horeysay waa la jabiyay isbuuc kadib haddana waxa la filayay in gabi ahaanba hogaanka la bedelay wax ka bedel doon dagaalka iyadana ciidamada jab ayaa u horseeday ciidamada 23 bari ee dagaalku ka socday magaalada Laascaanood maalin aan lagu jabin ciidamada maamulka Somaliland ma jirto hal maalin oo 1 kilomitir ay magaalada u soo jirsadeen ma jirto maalin kasta waa la riixaa waa la durkiyaa waa la jabiyaa dhaawacyo fara badan iyo meydad uma loo geeyaa ninka la yiraahdo Musabixi arintaasi markay dhacday waxaan ognahay dagaalkii Jumcaha dhacay inuu ku dhaawacmay ninka la yiraahdo taliyihii dhanmaa ee ciidamada ugu sareeyay Nuuxtaani dhaawac halisa oo ka soo gaaray dagaalkaasi ayaana loo geeyay wadanka Djibouti waxaana marba hadii taliyaashi dhamaanayaan saraakiisha ugu sareeyay ciidamada ay rasaasta ku dhacayso haleelayso waxaad arkaysaa in ciidanka howlgelinta dhan iyo saraakiisha dhanba inaysan khibrad ba u lahaynba ilaa saraakiisha meesha joogto waa saraakiil lagu keenay qaab qabiiliyeed ama qaab ilma adeernimo lagu keenay marka nin ishada in ilma adeer lagu keenay maanta ilma adeernimo ku difaaci dabcan maya saraakiisha ciidamada hogaaminaysa ayaa carraya dhabarka laga tooganaya wilal nafnaca oo markaasi ishooda mudac mareynin oo markaasi aan rabinba inay dhintaan iyo inay nooladaan toona kala rabin ayaa la dagaalamayo ciidan maamulka Somaliland oo ognahay in awood iyo waliba hubba uu u dhameystiraya marka la eego 30 iyo dhowr sano oo gooni ay u taagnaayaan oo ay rabeen inay la dagaalamaan Soomaaliya inteeda kaleeto waa tahay taliyaasha sida khaaska oo Musabixi u bartilmaameysay waxa kamid ah Mahad Cambaashe bal maxay tahay sababta Mahad Cambaashe isagu sidan loogu bartilmaameysay isla markaana dhammaan xilalkii uu hayay iyo sidoo kale inuu wax tala ah ku lahaan doonin ciidanka Somaliland dhaqaaqyada halkaas ka wadan ayaa soo baxaysay ilayso aad Mahad Cambaashe maanta maxaad ku sameyn lahayd dabcan Mahad Cambaashe maba mudna xataa kale in xil laga qaado ama la xiro waxa uu mudan yahay in sujuuda laga toogto nin dadkiisi haweenkiisi reerkoodii dhamaantii la xasuuqayo oo asaga maxal dhijay gawaaridii lagu xasuuqaya gala kula dadka xasuuqa leh maxaad ku sameyn lahayd adiga nin diyuusa oo dadkiisa aan dan ka lahayn weeye Mahad Cambaashe in sida loo galo oo la xiro oo waliba xiniyaha laga gooyo ayuu astaahila Musabixina arintii laga filiyay Musabix horta waxaan ognahay inuu dhulbahante iyo beelaha deegan gobolada isii uu hore u mideeyay maantana ficilka uu qaaday ee ah in Mahad Cambaashe xilkii uu ka qaaday sidoo kale uu ka dhigay askari dabla ah ninkii shalayta waxaad artay ku hadlayay shacabka xasuuqaya dhibaateynaya aad buu ugu mahadsan yahay waana arin kaleeto oo beesha dhulbahantiya beelaha daarood ugu hiliyaal dhigi kara dabcan talaabada uu Musabixi qaaday ee baarlaha uu ka rifayo dhammaanba saraakiishii iyo mas'uuliyiintii beelaha daarood ama beelaha dhulbahantiya markaas ku mathalay maamulka Somaliland oo dhulka dhigay aad buu ugu mahadsan yahay Musabixi waana talaabo kaleeto oo markaasi ay dadku ka heli karaan dhiirigelin iyo waliba sidoo kale midnimo u keenaysa weeyaan ta kaleeto in ciidamada la isku shaandheeyo oo la qabto oo la bedelo oo kuwa kale la soo magacaabo waarna ayadana ku tusayso in jabka ciidamada soo gaaray uu yahay mid aad u ballaaran dadka deegaanka waxun bay keenaan oo kaamirooyinka ka soo duubaan saldhig ay qabsadeen gawaari ay qabsadeen hub ay qabsadeen arinta run bay bahaydba Musabixi baa marhaati ka noqday mar hadduu bedelay saraakiishii ciidamada waday mar hadduu bedelay maxaa dhigi jiray aagi la joogay iyo nimanka hogaaminaya dagaalka hadduu bedelay qaar koodna xabsiga dhigay waxay ku tusaysaa in dadka deegaanku ayagu ay jabiyeen ciidamada maamulka Somaliland marka waxay ahayd Musabixi inuu xogo board isku yara qariyo sidan hadda uu sameeyay xogo waxaad moodaa in daciifnimadiisa aan si toos ah ay dadku u ogaadeen haatan dagaalku uu sii socon doono kana bilaaban doono meelo aan ahayn agagaarka magaalada Laascaanood waxaan uu kacdoonkii ka bilowday magaalada Laascaanood isla markaana dagaalka
sababay ay ku dhinteen kumanaanka qof sidoo kalena ay intaas inka badan ka barakaceen waxaa leeyahay wuxuu ku fiday dhammaan gobolada kale ee SCC bal kacdoonkan hadda halkee marayaa maxaa kusoo cusboonaaday horta ilaysow horta kacdoonkan sidii laga filayey si aan ahayn ayuu noqday dagaal ayuu sababay dhimasho fara badan ayuu sababay laakiin dadka deegaanku way u diyaarsanaayeen soomaalida inteeda kaleeto ayaa ka aaminsanaa in beelahan iyo dadka degan gobolada ACC horey waxa looga bartay inay maalmo dagaalamaan maalinka dambena isdhiibaan laakiin go'aankan wuxuu noqday go'aan xilligiisa ku soo aaday lana mid ah midkii ay ku taageereen dhulbahante maxamed ninka ilaahay sayid maxamed cabdilla xasan oon ogeyn in Soomaali oo dhan intay cadow ku noqotay ayagu ay gaashaanka u dareen sababtayna in Soomaali oo dhan ay xoreeyaan dabcan go'aankan waa go'aan xilligiisa imaadal dhigi kara marka laga reebo in go'aankaasi uu adkaa sidoo kale tan uu dagaal sababay uu deegaano badan ku fiday Somaliland la jabiyay Somaliland qaranka isku haysatay ee raadsanaysa ictiraafka arrintaasi god ku riday oo ga soo laabtay marka inta laga soo tago kacdoonku waxa uu mideeyay dhammaanba beelaha degan gobolada ACC markaan kule ugu mideeyay beelo badan ayaa degan dhulbahanto kalita ma aha waxa kacdoonka wado ama maanta dagaalka ku jiro ama ka wada maamulka ama la dagaalamay maamulka Soomaaliland waxa ku jira beelaha hawiye beela kaleeto ayagana kamid ah beesha gabooyo iyo waliba beelaha daarood oo ayagana aad u far badan oo degan gobolada ACC ayaa qayb ka ah maanta degmada Buuhoodle waxa ka dhacay arrin la yaab leh oo markaasi ay adkayd in xataa dagaal ugu jiro sida ay ugu dhiiradeen shacabku ay adkayd waxay qabteen guddiga gudoomiyaha gobolka uu ku lahaa magaaladaasi ayaa la gubay dhammaanba siyaasiyiinta ka tirsan maamulka Somaliland ee deegaanada ka soo jeedo guriyaha ay ku lahaayeen ayaa dab la qabadsiiyay dadka deegaanka waxay u muujiyeen yani garab istaag iyo waliba soo kale inay diyaar u yihiin waxa ka socda magaalada Laascaanood ayay muujiyeen ayadoo waliba aan ogeyn ilaysow dagaal ka socda magaalada Laascaanood in haweenkii ay ku jiraan oo ay dhaawac tirayaan yani nimanka jabhadda SNM ee dhibaatada dadka ku hayo in dhaawacyadoodii ayaa ka dhaawacmay ay biyaha iyo waliba sidoo kale tan nafaqada ay la garab taagan yihiin in ciidanka ay la joogaan in dadka shacabka ahaa shaqooyinkoodii dhanaa intay joojiyeen ay gawaaridi ku soo arunayaan dhaawacyada iyo waliba meedadka uga dhinta halkaasi ayagoo waliba dhaawacyadaasi qaadayo hataa qofkii qaadi karo ilaa garwa gaarsiin karo waa wadaya dhaawaca halka gaariga wala gaarsiin marka dadkii waxay noqdeen dad midaysan inay cadowga iska dhiciyaan dhibaatooyin fara badan oo isbiirbiirsaday oo ciidamada maamulka Somaliland iyo maamulka laftirkiisa dhowr iyo 10 sano ugu dambeysay ay dadkan ku hayeen ayaana midaysay qulubtooda qalbigooda talaabadooda hantidooda iyo maalkooda iyo naftoodaba ayaa midaysay waana mid keentay maanta in jabhadda SNM maalintii 13aad lagu jabiyo duleedka magaalada Laascaanood haatana uu musabixi ومعين كدكتي ciidamada traafikada ee u shal la taagnaa wadada dhexdeeda haweenkii caruurta kala celinayay inuu maanta u soo diray Laascaanood oo baru dhaho kuwan usha iyo waxay ku dagaalamaan halkaagee marka waxaad moodaa nin ku dagaalami way dhishiki iyo madaafiicda waaweyn iyo hubka ridada dhexe wanogna maanta waxay ka dhacay magaalada Laascaanood intii 25 kilomitir magaalada laga baxay oo la cararay ayaa madaafiicda ridada dhexe oo ay Djibouti soo siisa lagu garaacay isbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood nin isbitaal duqeynayo masaajid duqeynayo madrasa duqeynayo haween iyo caruur meel iskugu tago guryooda ka qaxay oo ga daba tagay ninkaasi maxaan dhihi karaa wadiyus wax kale oo dhihi karo ma jirto nin dadkii xukumayay ee asaga hoos imaanaya maanta saa u galiyo dabcan dadku waxa weeyo xataa ilkaha haday ku dagaalami karaan waa inay dagaalamaan aad iyo aad baad umahadsan tahay dhanka kale ciidamada maamulka ee Khaatume State waxay maanta soo bandhigeen maxaabiistii ay dagaal ku qabteen sidoo kale waxay sheegeen in ay arrin gobonimo ah sameyn doonaan oo maxaabiistan qaarkood dhaawaca markay bogsadaan ay ku wareejin doonaan ehladooda bal arrintaas iyada sidee u arkaan dadka arrintaasi horta gobonimo waa lagu yaqaanay dadkan dad xun ma aha dad maxalli jiray yani Soomaali jecel oo midnimadeeda jecel wax hadii musabixi hataa kale maalinka hore dagaalku u dhacay oo galaan la dhiro wan ciidamada waa inaga baxay nimayo saan isku deyno way soo dhaweyn lahaayeen oo maxalli jiray wax laga yaabi lahaaba in wada hadalka wax weyn ka bedel lahaa laakiin asaga wali awoodi wado maxaabiistana hore waxay u sheegeen inaysan wax dhib u geysan doonin inaysan dili doonin waa maxaabiist dagaal ugu qabtay qaarkood dhaawacay ahaayeen dhaawacyadii istaan tilagay la soo daweeyay reerahoodan ay ku wareejin doonaan gobonimo waa marka arrintan waa arrin marka hore laga filiyay waay beesha meeshaasi degto aad iyo aad baa mahadsan tahay dawadayaal intaasaan kusoo koobaynaa barnaamijka koobnaan ku falanqeynna xaaladihii u dambeeyey ee magaalada Laascaanood wixii ka soo kordha waxaad ku maqli doontaan wararkeena dambe idin soo gudbin doona saacadaha soo socda haddii ay beeraado balse kan kiisa xiga intaan halkan dib u kulmi doono waxaa idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo